شوي إيوه soo noqday haddane soo carara tii u weynayd baan haya qunbuli darriyihii u weynaayay soo carara xamdiyey soo yaaca xamdaay soo yaaca deeqaay wallahi caawa dhagaha idin qarxaya soo carara sii seexanaya aroortii waan shaqo tegayaaye soo carara hurdaa bay haysaa sheergareeya dee naga daayo oo calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu bilaahi calaykum wallaahi inoo sii seexanaya baa lay toosiyey bal kaca idinkuna kaca toosa idinkuna de waa cashahayba soo gala sii sheergareeya tuura warkii u weynaa warkii oo kooban oo koombe ku jira maanta hadal iyo muraara dilaac ayaan u taaganahay gabadhii walaasheen ahayd xogteedii baan idin siinayaa soo carara si aad ula gurmataane si aad ula gurmataan oo ugu hiilisaan hadalkii oo faahfaahsan baan idiin helay oo idiin keenay marka inaan idinla wadaago weeye idinkalama seexan karo xaqiiqiyan wax aad yaabi doontaan baana jira marka sheergareeya barnaamijka insha allah hay wallahi sariirtaan ku jira aniguna idinkaan idin toosinaya daamba waa lay toosiyey buul gubtay kama naxee kaca aroortiina waan baxayaaye khayr bay inoo noqonaysaa insha allahu tacaala sheergareeya waan idinka gaadhsiinayaa xogmoogaa xaajo biiyaa layidhi xogmooge ayaa xaajo biiya ilaahay subxaana wa tacaala masiibaha inaga hayo ilaahay masiibaha inaga hayo ilaahay dhibaataha inaga hayo ilaahay dadka xaqa ha tuso walaalo waxa soo kordhay khasray waan idinla wadaagayaa sheergareeya insha allah wallahi arrin weyn baa soo korodhay oo aynaan ogeyn marka muxuu ahay daana waa inaan idinla wadaago marka insha allahu tacaala soo dhowaada arrintaa murugada ah ay soo celisay anoo mar dhoweyd ka baxay oo weliba sii seexanayaan rabaa inaan idinla wadaago dee muxuu ahay fideogii meel kastaad ka tuurteen alla khayr ha idin siiyo xogtii oo dhan baan soo helay waa dhan ma dhammo weli laakiin wixii ugu muhiimsanaa baan soo helay waxa meesha ka jira waxa gabadha walaasheen la hiqdhabanayso marka waxa weeyaan waa inaad ogaataan waxa maanta tusma la hiqdhabanayso ee maanta cadowga gacanta ay u gashay iyo wuxuu yahayba waa aynu ogaano maadaama aynan wax hore ogeyn inaynu ogaano weeyaan inaynu muxuu ahaaye la soconno weeye waxa dhacay in waxa weeye inagu aynan noqonin dad wax lagu soo dhex tuuro uno yaabo oo waxa ceebta daawada waa inaynaan noqon laakiin waa inaynu sii ogaano waxa dhacay iyo hadday dhacdaba waxa soo socon doona marka xaajadii iyo duuduuban ayaan soo helay run ahaantii waxa safiye helay waxa dhibaatada ku dhacday waxay tahay meeshay ka bilaabatay waxa hadda haysta waxaysan sheegi karin waxa weeye wax oo dhan waan idin siinaya ma garanaysaan waxa weeyaan marka inaad idinla wadaago waan ku khasbanahay anigu dadkan ku tashanaya ila waa idinka dadka xumaanta ka dhidhiyaya waa idinka waxa maanta doonaya weliba gabdhaha soomaaliyeed inay ogaadaan baa loo baahan yahay gabdhaha soomaaliyeed dhibaatada jirta ee cadowga ah oo inay ogaadaan baa loo baahan yahay weliba wiilasheenna intii fiican ilaahay inoo fiicneeyo meel aynu uga soconnaa ma jirto iyagunbaa ina huran laakiin waa inaad ogaataa godadka qodan ee la doonaya halista in lagugu rido weliba gabdhaha qurbaha jooga masiibo adduun baa dhacday masiibo ta ugu xun weeye in naftaada lala wareego xoolo lala wareegaynu arki jirnay guryo la dhacaynu arki jirnay qof lala wareego oo noloshiisa la yidhaahdo inta kaaga hadhay geerina kuu diri maayo ku dili maayo nololna kuuma ogol qof lagu yidhaahdo isagoo nool lama arag lamana maqal nolol lamana arag lamana maqal qof isagoo keliya ku yidhaahdo noloshaada anaa kule inta nolosha ka hadhay anaa kula taagan caawa marka waan idiin bilaabayaa horta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiin oo dhan waan idin salaamayaa barnaamijka sheergareeya
aniga wad iguma idaan baran xasarad iguma idaan baran inaan idin keeno been iguma idaan baran inaan fiyu raadiyo iguma idaan baran inaan social media lacag ka qaato ma fahmaysaan wallahi xoogayga iyo cagahayga wixii aan ku shaqaystaan cunaa ma fahmaysaan laakiin waxaan rabaa inaan wax bedelo oo aynu noqono dad walaala ah dhabarka isu jeedin laabta isu jeediyo mar walbana waan idinku idhaahdaa waxa mar walba igu kalifaana waxa weeyaan wax ilaahay igu abuuray oo ah jacaylka ummadayda ma fahmaysaan marka waxa weeyaan walaalo dhibaato jirto walaalayaal dhibaatada dhacda qofka dadku waxbay ka bartaan waa inuu qofku wax ka barto waxa weeyaan marka waxaan hadda fiidiyoogii markii aan duubay meel walbuu gaadhay gabadhii aynu u dirnay fariinta ee Safiya Tusma ahaydna wuu gaadhay dadkii ehelkeeda ahaana wuu gaadhay isaga ehelkiisina wuu gaadhay sidaa darteed waxa la ila soo xidhiidhay wax aad iyo aad iyo aad murugadeeda u xambaarsan oo kuwa isaga ugu xiga ee ugu dhow ay ila soo xidhiidheen oo sax ah oo ceeb aan ahayn yani wax beena waxa weeyaan marka Safiya Tusmo 3 sano ka hor ayaa la guursaday si xalaalo oo sharaf leh oo laba qabiilo u kala doontay ayaa loo guursaday nin ay islahayd maanta ka meedho wixii ku soo maray oo guurkaaga ku deg ayay guursatay magaca ninka guursatay Safiya waxa la yiraahdaa Cabdi Ciise Cajuun ayaa la yiraahdaa Cabdi Ciise Cajuun waa father of 7 children caruur leh oo reer leh Qaahiru joogay markay guursatay noloshiisu may ahayn mid isku toosan Safiya maanta iyada ku tacabtay sida qofka loogu tabco ee ilmahaaga aad ugu tacabteed u koriso jaamacad u geyso ayay ugu tacabtay inay maanta xoolo iyo wax walba iyo inay dhoofiso iyo inay kaxayso ay samaysay wiilkaas Safiya iyadu maanta furaash xariira iyo raaxa ah oo jacayla ayay goglatay ay rabtay inay goglato guri yagleelato laakiin iyadu may gafana guursabay istiri laakiin furaashkii ay dhigatay mas baa ku hoos jiray mas ayaa ku hoos jiray iyadu waxay tiri 2 sano ku noolaa laakiin 3 years bay hal ku noolay 3 sanadood sanad bay ka jirtay waxaan rabaa xaqiiqda jirta inaan idin sheego Safiya markii la guursaday arrintaasi dhacday Safiya horta way xanuunsantaa sideeda ma aha she is not herself markii iyadoo hadda arrinta ay ugu timid ay ka timid Mareykanka ay ka timid ee xagga tagtay waxay u tagtay cilaaj Safiya waa la sixiray way xanuunsatay waxa way nolosheedii dhan baa lala wareegay telefoonkeeda waxa lagu xidhay wax la yiraahdo team view buu ku xidhay Safiya iyadoo Mareykanka joogta ayaa la maamulay iyadoo Mareykan joogta baa waxa la ogaa nin wiilka Hargeysa jooga inuu soo wax qofka wacay inuu arko qofka soo message gareeyay inuu arko buu awood u yeeshay Safiya waxa lagu sameeyay in wax kasto ay haysato la ogaado oo telefoonkaaga halka laga daawado not only TV iyo waxa telefoonka caadiga haysato noloshaada caadiga shaqo hadaa tagayso wax kasta hadaa tagayso waxa weeyaan Safiya waxa la wareegay waxeedii oo dhan nolosha iyadoo ku jirta ayay maanta waxay u timid inay ilmaheedii xanuunsanayay caruurteedii ka soo tagto ay istiraahdo muxuu ahaaye iscilaaj ninkeediina de wali isqabaan laakiin noloshu aad iyo aad u xunto hel tahay Soomaalian garanin Safiya markay xagga tagtay waa la dabiibay quraan baa la saaray dadkii waxoogaa way fiicnaatay culimadii way ula hadleen waxa lagu yiri fargal iyo bahal ay sidatay bixi fargalkaana bixi waxa weeyaan waxna looma qarin safarka fargalka iska bixi ninkaana ha u dhawaanin telefoon yuusan ka soo wicin caadi baa loogu sheegay Safiya wax kasta ayuu ogaatay maalmay ahayd Safiyadeedii oo ay jacanigi waxa la yiri noqotay qof si hurdo ka soo kacay oo kale noloshay ku jirtay waxay ku jirtaba ay la yaabtay maalmo yar oo kooban Safiya iyadoo sidii ku jirto wali cilaajkeedii waxay u socdaan way ka farabaxsatay wixii ku dhacay oo haddana waxay gacanta ku dhigay wiilkii awalba gacanta ku hayay telefoonkeedii iyo fargalkii iyo waxyaalihii oo dhan bartibay lagaga celiyay Safiya waxa la saaray xitaa waardiye inta la saaray baa la yiri social media ayay gelin iyadoo Safiya saaran waardiye oo la hayo ay dhalinyaradii haysay ku tiri waan seexanaya madaxa ay xanuunaya telefoonka intuu ka soo wacay buu ku yiri dhageyso inaanan arrinta dhacday ee Snapchat ka la geliyay shaqo aan ku lahayn waa inaad wacdo nin waxa ku soo wacaya shiina culay markay la soo waco wareysanayay inayd wiilkaasi waa bari isaga ku yiri qof kasto Safiya wacay oo wareystay ninku isaga shaqo kule waa inaad wacdo arrinta beenisa lagu yiri Safiya wallahi inaanan been idin sheeganiyo billahi beeni baa lagu haddaad wacdaan lambarkeeda idin siiyo
ومغليا وحا كلها هدليسان awooday ku dilid garaysana male haddaad beenidii ay ru doonaysaan safiya telefoonkeeda caawa haddaa wacdaan etoobiyuu joogaa horta wiilkii wuu baxsaday dirirna buu joogaa wiila reer jabuutiye buu la joogaa waana la qaban lahaa maanta safiya dadka iyadaa ka hortaagan safiya hadda waxa weeye bilkos waxbaa lagaa hayaabaa lagu yidhi safiya noloshaada wajaale maalintuu ka tallaabay muxuu yidhi wajaale maalintuu ka tallaabay wuxuu yidhi waan ka baxay xuduudda somalilan waxaanan kuu sheegayaa noloshaada inaanan geerina kaa dhigayn nolol la'aanan kaa dhigayn weligaana anigu aan ku leeyahay waxaad samayn kartaana ayna jirin waa falsafiye loogu hanjabay xuduuddii somalilanna waan ka baxay dirirna buuna joogaa cabdi ciise dirirna buu fadhiyaa safiya cid walba oo wax qaban lahayd iyadaa ka hortaagan hadday dadkoodu hadli lahaayeen ama asxaabteedu hadli lahayd oo waxa jira sheegi lahayd iyadaa odhanaysa anaa ku beeninayo soo fadhiisanaya waayo telefoonka inta lagala hadlo buu odhanayaa wallaahi waan soo dhigayaa hadduu qof hadlo anigu caawa arrinta aan qarxinayo dee isagu hadduu xuniyo leeyaha soo dhigo anaa qarxinayo caawa la taagani anaa qarxinaya caawa safiya horta waxay ku jirtaa waa noloshaas dadka waraysanaya safiya waa waxa weeye isagaa ka dambeeya inay iyadu cidda wacato oo la waraysto u sheeg naayaa haddii kale wallaahi bilaahi tallaahi waxa dhaca waad arki qofkaa waa inaad ku tiraahdaa ninkaasi wax allaale waxa uu shaqo ku leeyahay dambiilii ma jirto horta safiya say ninka u difaacaysaa waa saa ma fahmaysaan safiya caawa lafteeda quraan baa lagu hayaa caawadan wallahi inaanan been idiin sheegin ma fahmaysaan waxa weeyaan markaa isagii wax walba wuu la socdaa dadkiisiina wuu u sheekaynayaa gabdhihii way xanaaqeen hablihii isaga qabiilka ahaa maanta isaga inankaas ciida gale way xanaaqeen gabadhii damiir kasta way xanaaqday facebookiisa eega wax walba wuu daawadaa dadkana ma aqbalo laakiin safiya hostage baa lagu haystaa safiya waxaa lagu yidhi hadda ugu dambayntii finally $21,000 haddaad bixiso kiliibka waan tuurayaa kiliib baan kaa hayaaye $21,000 iga siiso haddii kale publican soo dhigaya safiya waxay u leedahay any minute nolosheedu way dhici kartaa inay destroy noqoto telefoon baa dhegta loogu hayaa safiya telefoon baa dhegta loogu hayaa waana lala soo hadlaya waxaa laleeyahay arkee somalilandna wuu ka baxay haddii la odhan lahaa ninkaa qabta oo maanta la odhanaya turjiga lala hadli lahaa oo etoobiya lala hadli lahaa soomaaliya qaban lahaydna safiya iyadaa ka hortaaganba oole ma hadlayo yaan la hadlin yaan juuq la odhanin yaan la sheegin yaan la waxaynin ilaa iyo intaan idinka tegey waan hadlayey wallaahi ilaa iyo intaan idinka tegey inaan salaad tukaday mooyaane waan hadlayey been idinma sheegaye waxaa la raadinaya xaqiiqda dhabta ah inaan soo helo oonan wax beena idiin keenin cajuusad yahay xun ee gabowday muxuu ahay baa lagu caynayaa haddaad odhan weydo sidaa ta kugu dhacda waad arki wallaahi noloshaada dhan waa destroyed garaynaya bilaahi calaykum soomaaliyeed maanta ninka xalaasha gabadha ku guursaday ee reerkeedii ka doonay ee adeeradeedii iyo aabayaasha walaalaheed ka doonay ee sharafta ku guursaday ee ay ku tabacday ee ay wadaagteen inay tidhi haddaad mid la dhaafdhaafayo ka dhigatid oo yesi biyahaas yesi aad ka dhigatid xariir ka dhigtid midun baa kugu qabsanaysa ay leedahay safiya mar buu unsigeedu iyo cadarkeedu baxayay safiya waxay gacanta u gashay wiilaan diin iyo dhaqantoona ilaalinayn bay u gashay dadkan maanta dhambaalka u dilayeyna dee telefoon inay kula hadalna mooyaane baxsayba horta ninkaasi maalintuu xadka ka baxay wajaale buu badheedhay wajaale markuu ka baxay xadkiisa ayuu horta badheedhay markii hore dhan wuu isnabayey aad baad u mahadsantihiin safiya waa inaad horta jacaylkii galabta aad muujiseen soo muujisaan 800 qof baad igu daawanaysaan waa inaad soo muujisaan oo wadnaha usoo tuurtaan horta safiya horta wadnaha usoo tuura inaynu garab taagannahay safiya usoo tuura haddii inay nagu xisaabtanto oo wax ku dhici karaa jirin safiya usoo tuuraya inay sharafteedii iyo gabadhnimadeedii hagoogan tahay safiya usoo tuura inay tahay hooyo soomaaliyeed safiya usoo tuura inay maanta hankeeda doonaysay inay weli way yar tahay waa inan yar ay qof dumar oo yar weeye ay maanta ku raaxaysato wiil muxuu ahay gayaankeedoo sharafta ay guursatay safiya usoo tuura inayna iyada ahayn khayrkeeda inay guursatay oo ilaahay caraf uga dhigay laakiin ayna ogeyn waxa ku hooseeya garanaysaa usoo tuura inay maanta ay haysato full support from Somali community
full support inay haysato ha loo soo diro Safiya gabadha jeclaan lahayd caawaaga in lagu xidho telefoonkaaga nin Soomaaliya jooga adigoo Ingiriiska jooga inuu ku maamulo gabadha jeclaan lahayd maanta adoo Mareykan joogta in lagu maamulo gabadha jeclaan lahayd maanta adoo hooya in lagu hostage gareeyo this is the reality ay ku nooshahay Safiya ay ku nooshahay ma garanaysaa wax loo dul qaadan karo iyo wax qof bini aadan ku hadli karana ma aha ma garanaysaan waxa weeyaan marka Safiya waxa weeyaan dad ka dhiidiya may waayin dad u hiiriyana may waayin xaqiiqdii markaan soo helay dad maanta gobonimada reerka ninkaasi ka dhashay wax ka qabtana lama waayin laakiin iyadii baa xanuunsan oo maskaxdeedii caadi ahayn oo go'aan gaari karin oo isu haysata inay qaflad ku jirto oo la leeyahay waa lagu dilayaa oo lagu leeyahay waa lagu ceebaynayaa oo la leeyahay lacag keen $2,000 buu qaadanayay biilka believe or not $2,000 every single month Safiya baa lagu xujay inay jirto iyadoo Mareykan joogta imagine hooyada joogta Mareykan ee aan decision gaari karin because caafimaadkeedii ma joogin she is not herself maanta maxaa idinku lahaa si xirto ma jirin Safiya waxa weeyaan fargalka maanta aan xidhanahay loo xidhay jacayl baana loogu xidhay jarkas kaasoo kale ayaa jacayl loogu xidhay jacaylkii fargalkii loogu xidhayna fargal sixiran buu ahaayay balaayo kala kulantay oo iyadoo joogta Mareykan la abiyuusay oo iyadoo joogta Mareykan la yiri intaasoo lacag bilowba soo dir oo iyadoo joogta Mareykan qofka wacaya iyo qofka ila hadlaysa muxuu ahaa iyo aniga adiga hadashay bal lahaa thank you jacaylkaad u muujisan Safiya thank you wadnihiina quruxda badan thank you jacaylkiina Soomaaliyeed thank you inaan maanta proud idinku ahayo qof xun aanan Soomaali uga cadool go'ayn thank you inaanan oranaynin maxaa Soomaali iga dhaliyay waayo intiina soo wanaagsan baaba joogta thank you inaad maanta jacaylka muujinaysaan oo Safiya wada taageersan tihiin oo kama qurux badan soo qoraysaan ma garanaysaa thank you ina anaguna garbaha aan ku duulaya aad tihiin oo aad isku kiin halaynayaan oo dhaahdo qof xun haddaan arko inuusan nationkayga ahayn in waxaad soo qoraysaan maanta yacnigii waxa yidi diila igeliyay maanta inaan idinkula soo noqdo waxa weeye haddaydaan Safiya support tusi lahayn niyad kumaan soo noqdeen laakiin jacaylkii way daawatay maanta kilinkii way daawatay kiliibkeennii way daawatay jacaylkaad u muujiseen waa loo dira way daawatay Soomaaliya oo dhamina way daawatay Safiya maanta waa hostage soo maydan arki jirin qof la afduubay oo meel cadow ku hayso Safiya waa la haystaa waxa ugu daran qofku inuu ku qabsado waa inuu maskaxda laga qabsado caafimaadkaana lala tago Safiya burca loo qaaday believe or not burca la geeyay rusheeye iyo waxa loo geeyay dadka halka joogay ma garanaysaa Safiya maaha qof aynu oran karno why she did this why she didn't do that ma garanaysaa maanta wiilkan le 22 baan ka siisanayaa marwadaydii inaan ku fareexeeyo ee ay iga iibso ila waa ay iga iibso ma garanaysaa ay iga iibso de waxaan leeyahay warniyow 40 baan ku siinaynaa de hor imo waa agreement kana la gal ha isku yaraynin 40 baan ku siinaynaa taariikhda Soomaalidana waan kugu qoraynaa 2020 wiil ciidan gala ah ma garanaysaa oo Cabdi Ciise Cajuun la yiraahdo ayaa sanadkii nooca ahaa xaaskiisii intuu taa ku sameeyay oo fiidyo u qaatay oo sidaa yeelay ayuu iibiyay Google-kaana ku gelinayna si loo soo hele dee soo baxo agreement nala gal lacagtana 20 baan kuugu darnay aniga ka dilaalehe bariya aniga ka dilaalehe soo bax Soomaali horkeeno fiidyo gana nasi lacagtana qaado soo qora de loofka soo tuura miyayna sidaa ahayn sidaa miyaanay ahayn inuu inoo soo baxo miyayna ahayn de hayna yidhaahdo muxuu ahay gabadhan kala tage xaasuma aha maanta Soomaadan garanin waxa weeyaan ka tagay waxna kaagamaan tagin ka tagay waxna kaagamaan tagin marka waxa weeyaan waa gabadhaasi waxa weeyaan way furan tahay mar hore la furay warqadii way kala qaateen laakiin waxa weeye ballan buu ku qaaday baan idin idhi wuxuu wiilkii yiri oo qoran oo taala waxaan ballan kuugu qaaday waxaan kuugu qaaday inaan live kaaga destroy gareeyo awoodda inta leeg yaasi waxa uu ka keenay xageebuu ka keenay awoodda inta leeg
miyaana ogeyn Soomaaliya inay nooshahay miyaana ogeyn miyuusan ogeyn Soomaaliya inay nooshahay miyuuna ogeyn sawirkiisa la iigu maqayon keenaya sawirka waad aragteen dawaab ku jira ila social media laakiin waxaan rabaa mid qoraal ah oo qoray baan hayaa la ii keenaya ma haya la ii keenaya Soomaadan garanin marka waxaan ku idin sheegayaa xaqiiqada jirta waa taas isagu wuxuu isiri safiya un cunaha ku dhig waxa tira baha la yiraahdo guduudane oo barigan gabadha yar ah ay ariga raaci jiray baadiyaha xoolaha laga ilaalin jiray guduudane marka neefku ma qayliyo haduu qabsado halka cunaha abu ku dhagaa uu la fadhiistaa dhiigu ka jaqa neefko baqtiyo buu sii daaya ma neefka dawacada iyo way qayliya guduudane lama arko ninkani marka waa guduudane gabadhan cunaha ku dhig buu isir cidina kuma ogaanayso Soomaaliya kuma ogaanayso waaye iyadiibu wuxuu gaarsiiyay heer ay isaga difaacdo oo ayna ka sheekay oo dadkii markay yiraahdeen waanu muxuu ahaayay waanu ka hadlaynaa ay diideen waa iyadu u diiday oo markii la yiri halala hadlo ay iyadu diiday ma garanaysaa nin wanaagsan baa dhalay aabba fiican baa isaga dhalo jooga Soomaalidu garanin I wish aabana waan ku daba jooga inaan keeno iraado naxar marite Soomaadan garanin Ciise Cajin waa ku daba jooga inaan soo helo run baan idin sheegay this is not joke absolutely this is not joke this is not just talk maaha aabahaas sharafta leh Soomaaliyeed waa keenaya isagana inaan iraado aabo di adaa dhalay adigu warka keen meeshan hadii Facebook la soo fadhiisto idinka soo dhex imanaya qofka wax sheegaya sharafta leh wax oge kugu xulaya dadka halkan uu ka imanaya isla markiiba telefoonadii dararag wixii oo dhan oo xambaarsan baaba soo qaadayba ma fahanteen walaalayaal marka Soomaali horta waxa jira waasaas tusmana love iyo jacayl iyo support ayaan u muujinaynaa waxaanu u sheegaynaa inaan sharafteeda waxba gaarin waxaan u sheegaynaa inay still tusma tahay waxaan u sheegaynaa inay tusma ahaan doonto waxaan u sheegaynaa wax ka qurux badan qabiilkay ka dhalato difaaca inay difaacayaan oo Soomaalinimo ku difaacayno waxaan u sheegaynaa inuu nafar nagala baxaynin qofkii damca tusmo inuu nolosheeda burburiyo no way inuu la tago ma garanaysaa inuu waxaan ka soo dhacaynin inuu isaguna qarsoonaado oo ceebtiisa la qariyo tusmana teeda la soo dhigdhigo ma soconayso banaankaas loo soo taxaya isagana telefoonkaaga inta la qaato oo ID-gaaga la qaato team view in lagu xidho adigoo jooga Jarmal baan anigoo London jooga ku ogaanaya qofka ku soo wacay ma garanaysaa TV-gayga shidanaysa hadaa doonto marka waxa weeyaan Soomaali bini aadamka waxa loo baahan yahay inayna degdegin gabadha dad baa caayay gabdhihii xitaa ka hadlay baan maanta galabta markaan idinka tagay waxa la igu soo taageerayay gabadha la yiraahdo Hodan Cabdiraxmaan oo tiri dawladdu waxa ka qabato oo la wada caynayo war maxaa la isku caynaya ma xaqa hal cadeeyaan la isku caayay ma cid baa la caayay war hooy waxa la yidhi nin gurigiisa quraanadii yahay dhagax ma tuuro ilaa Aamina Cabdillaahi oo sharaf lahayd oo hoboladii Soomaaliyeed baa la caayay oo dhashay Hodan Cabdiraxmaan war yaara bal eega heerka la marayo abiyuusku heerku maraya bal eega Somali woman abiyuuski meeshu marinaya bal eega gabdhihii hadlay ee yiri war yaara waxa weeyaan arrintan waxa laga qabto baa la soo caayay ilaa hooyadood baa la soo caayay ma garanaysaa maxaa lagu caaynayaa bal imika ma aniga maanta gabadha isaga la qabiilka ah waa aniga walaashay weey haddii iyada maanta wax lagu sameeyo anigu sidaas oo kale ugu qaylinaya u hadli lahaa way aragtaa waxa maanta ku dhacaya gabadh kasta oo Soomaaliyeed way aragtaa wax la qaadan karana maaha wiilkaas anagu maanu caayino aflagaadana noogama soo baxayso laakiin waxa xaqa ah waa la sheegaya we don't care qofkii ay tabayo social media intuu soo fadhiisto durbaana soo qaado xitaa cay ku soo buraanbo who cares ma garanaysaa laakiin anagu ma ogolin isbaaro gabdhaha Soomaaliyeed loo dhigto ma rabna gabdhaha Soomaaliyeed isbaaro in loo dhigto isbaaro no social media hadday noqoto meel la isku cuna qabateeyo dee anaguna xaqaana soo dhiganaa social media yaa laga xigaa wixii dhacay oo dhan baan ka sheegaynaa social media yaa laga xigaa ma fahantay qofkii gabaraya iyo qofkii baqaya iyo qofkii wax tira ay sheegaya runta sheegayn anaga sheegaya wallahi inaan waxba laga gabaray safiya arrinteedu Soomaaliya oo dhan inay gaadho weeye
bal soo tuura wadnaha safiye arrinteedu soomaali intay leegtay wayna ka garnaqdo shanta soomaaliyeed maanta soo ma joogo etoobiya oo kilka shanaad ma joogo iga gaarsiiya dadkii kilka shanaad bal ku taageeraya bahalka intaad garanaysaan oo dhan sheergareeya bilaahi calaykum waa inay dirir dhaba ninka jooga ay gaadhaa ma fahanteen dirir dhaba iyo jigjigaba waa inay gaadhaa iyo kililka oo dhan waa inay gabdhaha iyo wiilasha joogaa ka dhiidhiyaan waxa kan waa in ninkan la soo qabtaa oo dambiilaha la soo qabtaa safiya haddayna hadli karin oo cod lahayn oo halkaa cunaha la hayo annagaa hadlayna cunahana lama hayo annagoo xoraanu dhalanay maanta soomaaliya haddii la tago farg la sixirana lagu guursanayo dee ma ogolin gabdhaha lagu guursadana waanu ka bixinaynaa ma ogolin ma garanaysaa adduunyada waxa ka jiran la soo kacay waa waxaasaa jira ma garanaysaan wax la qaadan karo oo la odhan karo bini aadan ilaahay abuuray ayaa samayn kara maaha naagtaadii xaaskaagii because of money thank you so much thank you aad baan idinkaga mahad celinaya saboodka safiya sabood garaynaysaan safiya waxaa loo dulaynayaa waa lacag nothing else markii horena wax lay 2,000 kan bishii buu bixin jirtay 3 sanay $2,000 bixin jirtay balaas inay ka rartay qaahira balaas inay noloshiisaba dhisto guri kirayso gaari u iibiso wax kasta u qabatay noloshiisii oo dhan ay saa u tabantaabisay caawana waxaa la leeyahay waa inaad $21,000 keentaa waxaan kaa hayaa kiliib baan kaa hayaa wadhaas idmir kiliib baan kaa hayaa kiliib baan kaa hayaa maxay tahay naagtaad qabtay ee xalaasha lagugu meheriyey ee aad qabiilada ka doonatay ee wiiradka ka bixisay ee meherka ku mehersatay ee 3 sano aad qabtay ee xaaskaaga ahayd adigoo xalaal lagugu dhalay oo nasaba oo aabbahaa joogo sidee baad ugu odhan kartaa lacag baan kaa doonaya haddii kale waan ku ceebaynaya noloshaadaan burburinaya xaggaad adduunyada kaga nooshahay xaggeebad adduunyada kaga nooshahay xaggeebad ku noolaan doontaa ninkaa shaabad in lagu dhajiyo walaashiyey maanta aday kuu taala haddaadan ka hadlin walaashiisa la dhashayay ina ciise cajuun hadday adduunkada ku nooshahay walaalay ha saboorin dulmiga walaalka aniga wiilal baa ila dhashay gabadh inay xumeeyaanna ma ogoli wiilal baa ila dhashay inay gabadh xumeeyaanna ma ogoli wallaahi baanan ogolayn oo bilaahi ogolayn oo tallaahi ogolayn oo saboorayn walaalkay hadda gabadh soomaali ku xadgudbo saa waxaan ogay wuxuu galaa inay aniga ii imanayaan waxa uu isagu galo anay ii imanayaan soo maydan garanin walaalayaal soomaali haddaynu nahay waxa maanta inaga dhex socda waa inaynu ogaano waxyaalaha ina dhex imanaya yaqyaqsiga waa inaynu ogaano waa xaaskiisii markaasaa gabadh aan xaaraan ku tuman oo xaaraan gelin oo wixii ilaahay oggolaa samaysatay oo guursatay ayaa maanta waxay ku noosho ku leh faras baan saaranahayo noloshaydu anytime bay destroy noqon kartaa because of what my husband baa waxa igu haya why sabab waad guursatay waad iskala tagteen dee leave her alone maxaa lacagteeda u rabtaa shaqayso orodoo dad nin tahay ilaahay iimaanka kaa qaadi shaqayso maxay tahay waxaasi ma ku soo qaban karayo waa markaad soo dirtad iima soo baxayo I don't know waxa iga haya dadkan wallaahi way igu soo galayni maanta dhan lowdhin buu odhanaya markaan qofka soo qabto ma garanayo qofka markaan damco inaan soo qabto kamara xisaabto lowdhin buu odhanaya mana ii soo baxaysaan ma garanayo I accept your request laakiin iima soo baxayo qofka inaan soo qabto approve okay I did maanta dhan wuxuu odhanayaa adin dabeedna wuu go'ayaa
walaalayaal ma waxaan leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed qofka bini aadamka ah waydan waxaan u yeedhanayaa IT technician kos kamarada markaad ii soo dirtaan requestiga aan qofka taabto qofkii ma soo baxayo wuxuu odhanayaa adin maanta dhan waa sidii wax lowdin oo kala ah can you help me here halkan look this is adin request the camera approved bal in yar suga in yar cancel them is adding alla ciil badana ayay ciil badana wallahi billahi I can't do this ma garanayo why bal waa la hagaajinayaa inaan idin soo qabto ma garanayo waxa kamarada igaga dhacay ma fahmin anyway walaalayaal waxay la tahay inaad arrintii fahanteen aadna qurux badanna usoo qoraysaan realityga jirana waa kaa beenna anigu idinma sheegayo isagoo faahfaahsan oo deep downana waan idiin keenayaa dadka marka waxa weeyaan kamarada rabaan weli inay hagaajiyo waxaan idiin sheegayaa marka okay waxaan rabaa marka inaan idiin sheego qofkaan doonaya inaan soo qabto markaa requestiga soo dirtid telefoonkaaga sidaa u dhig saasaan kugu soo qaban karaa haddaad telefoonka saa u dhigtid waan kusoo qaban karaa hadduuse saa yahay kuma soo qaban karo so requestiga soo dhig telefoonkana saa u qabo waxa weeyaan markaa tafiyo tusma wallahi aad baan idinkaga mahad celinaya inaad soo support garaysaan wallahi billahi bottom of my heart okay haddan tijaabinayaa sug no answer soo qabanin okay add it says adding so